tan iyo markii ay isbeddel ay gashay caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho waxaa mar qura isbeddel ku yimid qaybo badan oo ka mid ah nolosha bini'aadamka waxyaabaha indhahagu ay qabanayaan ee aad arkayso inay isbeddeleen waxaa ka mid ah waxbarashada magaalada Muqdisho iyo goobaha waxbarashada ayaa waxaad arkaysaa dhallaanka Soomaaliyeed oo xilligan ku tartamaya inay waxbartaan 3 pi over 8 minus sine first angle pi over 8 minus second angle 3 pi over 8 60. In the same time it is equal. I can say this is not primary direct angle. How can I get it primary? Sine, you must be at 360 minus 60 degrees. And after that, for using reduction formulas, 360. goorma ayaa kugu dambaysay inaad aragto arday Soomaaliyeed oo leh wiilal iyo gabdho oo qurbaha laga keenay oo magaalada Muqdisho iskuul ku yaala wax ku baranaya taasina waxaa sii dheer ardayda Soomaaliyeed ay ka imaanaysa gobolada dalka oo si weyn wax uga baranaya iskuulada hoose dhexe iyo sare ee dawladda Turkiga ay ka hirgelisay magaalada Muqdisho ardayda wax ka barata magaalada ee laga keenay qurbaha gaar ahaan dalalka reer galbeedka iyo waliba dalalka Afrika iyo Khaliijka iyo kuwa ka yimid gobolada dalka xilligani waxa ay ku jiraan tartan xoogan oo dhinaca waxbarashada waxana taasi dheer inaad iskuulada aad ku arkayso arday Turkiya oo wax la baranaya kuwa Soomaalida oo waliba fasaladu ay wada galayaan waa laba arday oo Turkish ah oo wax ka barta magaalada Muqdisho ayaa waxaan kala sheekaystay waxbarashadooda iyo magaalada Muqdisho waxaan kan rabaa inaan weydiiyo maxaad Soomaaliya Muqdisho ka war xaaladeeda Muqdisho nasıl diyor yani Muqdisho nasıl diyor Güzel geldikten sonra yani biz buraya ilk 2011'de geldik. O zamandan beri güzel işte okula gidip geliyoruz. Eve gidiyoruz. Arada sırada dolaşmaya da çıkıyoruz böyle. Muqdisho wuxuu leeyahay aad u wanaagsan tahay. Anaga inta waxa iimaanay dhahay halkan 2011kii. Saas darteed sababta u iimaaneen waxay ahayd in halkan oo ardayda Soomaali walaalaheeni yani wax kala barano. Saas darteed inta u iimaanay. Marka iimaashada waan ku faraxsanahay waan magaalo aad u wanaagsan u leeyahay. hay ka waran ardayda Soomaalida ee galaaska wada dhigataan akhlaaqdooda waxbarashadooda ka waran yani şu an yani senin sınıfın yani öğrenciler Somali öğrenciler var. Öğrenciler nasıl yani edebiyat falan nasıl diyor? Öğrenciler iyi. İşte Türkçeyi yavaşça öğreniyorlar. Arkadaşlık bakımından da aramızda bazen sıkıntı oluyor ama çoğu zaman işte iyi gidiyor yani. Şakalaşıyoruz falan. Problemleri de çözmeye çalışıyoruz. Yani pek bir sıkıntı yok normalde. Yani wuxuu leeyahay maadaama arday isku galaas yihiin marmarka qaar dhib uu iska dhacaa laakiin inta badan hadda dhib ma dhahay marmarka qaar oo problem yar kala kulman anaa isku daya inaan xalliyo marka hadda waa arday aad u wanaagsan u dhahay sida aan ku bartay Gayet iyi öğrenciler var. Bosaso'dan var, Kenyalı var, Etiyopyalı var. Bütün öğrenciler var. Gayet iyi anlaşıyoruz. ardayda dhammaan oo dhigata wuxuu dhahay arday Kenya ka imaadayna joogo arday oo Bosaso ka imaadayna joogo u dhahay reer Muqdisho sidoo kale arday joogto aad ay wanaagsan yihiin dhammaan waa asxaabtaydu leeyahay hay garoonkan u jeeda basketka lagu ciyaaro banooniga lagu dheelo ma wada ciyaartaan oradan bir halı var diyor halı seninle arkadaşlar top oynuyor musunuz diyor yani Okul çıkışları her gün oynuyoruz. Gayet güzel. Arkadaşlarla oynamak güzel oluyor. maalmaha iskuulku xiran yahay anay asxaabtaydi dhammaan ordayska galaaska anahay banooni waa ciyaarna marka dhammaan xilliyadaas camal iyo garoomadan kale oo basketballka dhammaan waa ka wada ciyaarna mar walba oo fasaxana iskuulka af Soomaaliga ma fahantaa
Somalice anlatabiliyor musun yani? Ya, genellikle İngilizce ama biraz da Somali. Yani inta badan English isku hadlayna laakiin Somali ilaa hadda waa wax yar waa fahma u dhahay laakiin si fiican ma baran. haye magacaa ii sheeg Sayid. haye ka waran jawiga muqdisho ka warsee u aragtaa Nasıl yani Mogadishu hava nasıl görüyorsunuz diyor. Yani. Mogadishu'da hava iyi ama insanı çok terletiyor. Yani bu kadar. Yani jawiga Mogadishu aad u fiican yahay u dhahay. Marmarka qaar inkastoo marmarka qaar dhib iska dhacayo oo banaanka laakiin jawigeeda aad u wanaagsan yahay. goorma imaata inta Ne zaman gelmiş buraya diyor. Hmm. 28 Ağustos'ta 2014'da geldim. Geldiğimden de gayet mutluyum. Wuxuu imaaday bishii 6 2014 imaaday. Ilaa hadda Mogadishu jooga laakiin wax dhib ma la kulmin u dhahay. laba kelmad oo Soomaali ma ii sheegi kartaa Yani iki kelime Somalice yani söyleyebilir misin diyor yani. Ee, ee, Setay. Ee, Maga, Maksana Jirta, Kale, Bah. magaalada muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya marka loo eego sanado fara badan oo burbur xoogan uu ka jiray iyo haatan waxaa muuqanaysa in isbeddel dhanka waxbarashada ay ka jirto waxaana sidoo kale lagu soo ama aad arkaysaa ama gudaha caasimadda aad ku arkaysaa dawladaha shisheeye gaar ahaan dawladda Turkiga oo goobo waxbarasho oo hor leh ay ka hirgelisay magaalada muqdisho iyadoo ciyaalka qurbaha ama dhalinyarada qurbaha ka imaanaya iyo kuwa gobolada waddanka Soomaaliya ay ku tartamayaan waxbarashada ka jirta gudaha caasimadda waddanka Soomaaliya ee Muqdisho. ardayda Soomaaliyeed ay ka timid dalalka Yuruba ayaa la dhihi karaa wax badan ayay ka faa'iideen in gudaha dalkooda ay wax ay ku bartaan iyagoo ku sheegaya inay aad ay ugu faraxsan yihiin in dalkoodii hooyo ay wax ku bartaan isla markaana ay bartaan dhaqankooda. magacaaga sheeg أيوب ayuu maxaa lagu diraa محمد ayuu maxamed إسماعيل ismaaciil haye ayuu maxaa barataa Turkish computer Somali Arabic math ويو xagee ka imaatay waddankee ka imaatay Sweden Soomaali meeqa sanaa joogtaa and 4 months 4 biloodaa joogtaa haye ka waran Sweden iyo Muqdisho yaa fiican مقدشة فعلا maxay ku fiican tahay Muqdisho Sweden ka imaatay Muqdisho maxay ku fiican tahay دينتا لبرتا وحبدنا لبرا ودنكا جوكتا هذنا والدكا جوكتا ده أنكسكا وحبدنا برسا haye dhalinyaro badan oo Soomaaliya joogto oo magaalada joogto oo jooga jirto waligood qurbahan arkin ka war maxaa see u aragtaa وفهمتاي دادا إسبرنينا هذنا في إنجليزي إسلهرنا في Somali فأنت سابيال haye بروني ma dheeshin goro بنون وادلنا وإسلعيرنا وإسفرحسنا Sweden markaa joogtay maxaa ku nacday Sweden waxyaalaha ku nacday maxaa kamid wadan gaalo waaye moogtahay waxabdan af quraan ma la baro waxa saas amklo laakiin halkan oo kale waxyaalaha ku jeclaata maxaa kamid maxaa ku jeclaatay hadda Muqdisho maxaa ku jeclaatay iskoolkan Turkiyada ay maxaa ku jeclaatay ina waxabdan la barto oo waalis caawa meeshan hada meel fiican waaye meeshan ay dhalinyarada kale ee hadda Sweden joogto ama dibadaha joogan maxaa dhihi lahayd meesha Sweden maxaa dhaala meesha fiicantahay waxan caadi waa ka cabsanay waxay inay imaadaan maran waxay leeyihiin meesha cabsiya ku jirtay dhooyaan cabsi ma jirtaa meeshana ma meesha fiicantahay xaalada caadi miya caadi waa magacay waa Yusuf Ali Yusuf Ali xagee ka imaatay ani Holland ka imaada waddankaaga kee waa Soomaaliya
Soomaali good waxaa ii sheegtaa meeqa sano inta joogta ama meeqa bilooda joogta xamar ani inta 5 bilood jooga xamar ka war xamar see u aragtaa waa fiican tahay hawada waa fiican tahay meel kasta banooni ku ciyaara iyo dad oo Soomaali la jooga Holland maxaa ku nacday xamarna maxaa ku jeclaatay xamar waa ku jeclaaday inta quraan bara karaa dad oo Soomaali jooga si fiican wala hadli karaa iyo Holland ku nacay inaan quraan ma bara karaa iyo gaalada iyo dadka meesha joogan misfahmayno marka qaarkood ilmo oo dhalinyaro oo Soomaali oo galaaska jooga aragtay oo wiligood aan dibadda aadin ama Holland aan aadin aragtay ka war maxaa la kulantay maxaa isdhahdeen waaslaadna waa sheekaynaa sida meesha sooya dibadda iyo waas khoslasnaana dadkan ka fiican dadka hadda dibadda jooga asxaabtaada Holland joogto oo kale ama kuwa kale Ingiriiska jooga oo ama kuwa kale Mareykanka meelahaas jooga Yurub ama qurbaha jiro wadanka waa ka cabsanaya ilmahooda inay keenaan ma rabaan kuwaas maxay u sheegay Soomaaliya fiican tahay dad dangerous dami jirto iyo waa soo kartay inta ka fiican inta dugsi quraan mis quraan baraysa iyo dadka baraysa nidaamka iyo keena karta iyo dhaqanka baraysa iyo dhaqankan ka fiican hay iskoolkan Turkiga oo kale hadda Badr waxyaalaha ka baratid maxaa kamid af Turki barna iyo af Ingiriis Soomaali matematik iyo computer sida computer ka isticmaalo iyo word iyo waxas magacaaga sheeg bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Daahir Axmed Jaamac daahir ka waran waxbarashada iskuulkan Turkidu maxaad ka barataa marka hore fasalkan dhiganayo waa fasalka form 4 waxyaabo badan ayaan soo bartay inta iskoolkan dhiganayo aad iyo aad ayaan u farxsanahay sida aaminsan anigana waxaan aaminsanahay inuu iskoolaadka Muqdisho ku yaal oo ka hormarsan iskoolkan waa gartay waxyaabo lagu barto maxay iga sheegi kartaa waxyaabo lagu barto sida caadiga waxa lagu bartaa iskoolaadka waxyaabo kale lagu bartaa laakiin wuxuu dheeryahay sida physics chemistry waxaan leenahay laboratory sida kale waxa dheernahay maxaa la dhahaa maadada logic computerkana uu noo dheeryahay saas goboladan ka imaado ka waran gobolada aad ka timid maxaa kugu kala filan Muqdisho timaado iskuulkan aad ku biirto maxaa kugu leeyahay markii koowaad horta waxaan maqlay arday oo bixiyso Turki aadayso taas daraadeed waxaa dhahay inaan imta imaado imtixaankaas aan galo aan Turki aadaan rabay alxamdulillah maanta 4 sano ay dhamaatay wax yariis ay dhiman 4 bilood oo kale insha Allah hadan waxaan rajaynayaa inaan Turki aado marka dugsiga sare ka baxdo halkan insha Allah waa gartay waxbarashada ka wararkan wallahi aad iyo aad u fiican tahay hadda waxaan noo diyaarinaa imtixaan gooni ah oo US la dhahayo imtixaankaas wuxuu ka kooban yahay logic iyo xisaab iyo Turki imtixaankaas galno qofkii ku baas waxa la wadaa waxbarasho oo lacag la'aan koox dhalinyaro ah oo arday ah ayaa waxaana kula kulmay garoonka kubadda cagta ay ku ciyaaraan ardayda mid ayaana ula sheekaystay Axmed Arhay adiga xagee ka timid Soomaaliya Muqdisho joogi jirtay waagaag ka waran waxbarashada isku fiican tahay normal way ka waran maxaa ku yaabadnaa iskalka والله أقول لك بدنين أي كور أرضي بدن أو قربها كتمي دا جلاسك كل لقطة أرضي واسكتشون أرضي بدن أو قربها كميت كلاس أصلنا أيوة ما ستا هي ما قاعد يشك محمد مختار مختار هي حاجة هرجيسة كتمت كورن مقدشة جوكتا سكول كان لقطة أرضي فرب بدن كل لقطة بل كور وح برشة بس كيف أنت الحمد لله ما شاء الله كور محاكوها مين يسمى مستقبلك أنا ما في عنقر وهجاك أيه ما قاعد يشك عبد الله فيصل أرسل عبد الله هي حاجة كتمت from بوساس حافظة كتمت بوساس لا أنت هو ذاك كتمت وهجاك واحد وحاجة شكتها كورن وحبرشة أتال كان كريجت وحيالا أتكبرت أما ما دوينك أتكبرته محاوج وين إنجليش كا تركيش كا and Somalia هي ما قاعد يشك صادق دايمري حمزة صادق طيب حاجة كده حمزة إنجليش كيم هذه إنجليز كتمت مقالة دي لندن عاصمتها مدة إمتى هالكان جوكتها حاجة هالسنة بر أرضي فرق بدن أو غربها كتمت هالكان كبرتها دليل فرق بدن أو قبل هذا ودك كتمت مقالة مقدش جوجي بوساسو هرجيسة يتيم كلام عند أمور يسندرنا بل كورن جلاس كم كوجتين أرضي دانس إسكو فانتين واش كيسنا عادي وا تتكوالا قبصة
ها صح dada waxay leeyihiin muqdisho lama tegi karo wax laguma baran karo ama Soomaaliya oo dhan lama tegi karo wax laguma baran karo Hargeysa lama tegi karo ku leeyihiin Boosaaso lama tegi karo Muqdisho lama tegi karo bal ka war hadda Muqdisho joogtaa inta dhaqanka bartay quraanka u fiican yahay dad waa iska dadaala waxyaalaha baratay marka inta joogto waxyaalaha kula yaab badnaa maxaa kamid dugsida jingada ahayd aliyaabe waagaag aad aad maasta iisa dhow adiga iisa dhow haye magacaaga sheeg magaca maxamed waay maxamed soo dhow caad u fadhiiso maxamed haye magacaaga maxamed maxamed axmed xasan xagee ka timid maxamedo ingiriiska magaalade birmingham birmingham ka timid ka waran muqdisho joogtaa meeqa sana joogtaa 2 sano joogtaa waxbarashada ka war alxamdulilah iska fiican tahay iskoolkan Bedr Turkish secondary school maxaa ka barataa waxaa ka bartaa 4 maado ugu waaweyn physics biology chemistry and maths haye muqdisho marka xagga joogta maxaa ka aaminsaneed muqdisho meel oo dagaal ka socoto oo dadka islaynayaan oo dadka isnacab yihiin oo meel la aadi karin oo markastaba dada qaraxa maqlaysaay dada ku dhinteen marka ani waa baq markaan ii sheegay Soomaaliya aadisa in yar isku nahay marka timid ka war alxamdulilah meel iska fiican waaye marmar miidyada ayaa waxay iska camirinayaan waxay sheegaan badankoodna been ay ahayn waa ka haddana iska joogaa waxna ma maqli dadkana waa la qabsaday shacabku ingiriiska iyo inta ya fiican nolosha halkana fiican waa meel oo sheeg ah waxa rabtaa sameysan kartaa oo bixi kartaa banaanada shacabka waa la socialize garan kartaa gobolada kale waa tagi kartaa oo wax fiican anaga sameeyo ama sidoo kale beeraha kale beero afgoy ku yaalo waa tagay wax beero waaweyn ku yaalin oo meeshaas waa soo jeclaaday xaasda halka ma uu ka tagayba waagaag garoonkan kubada lagu dheelay waa ciyaarta filaa ya balooniga marka la dheelay la nasanayo ama jimcihii khamiista oo kale ama galbiya ama habeenkii oo kale la weyn ku dhigan u jeeda ma dhasha waa dhila bortier taamana bortier ya bortier goalkeeper taamana striker dhaliyaa tahay aad u maasta haye aysa dhow magacaaga sheeg maxamed ismaan maxamed soo dhow xogaa haye xagee ka timid maxamed muqdisho xaafadee alkamiin waa tahay ka waran waxbarashada dhalinyarada asxaabtaada oo kala magaalooyin kala gedisan ka kala yimaadeen sidee u aragtaa caadi wallaahi waxbarashadana waa iska normal maxaa xiisaysa maxaa baratay aniga waxaa jeclaa maadada biologiga iyo maxaa ku jeclaatay beeraha iyo waxaas iyo xayawaanada waa dhalinyaro qurbaha ku soo kortay oo dalkooda Soomaaliya dib loogu soo celiyay si waxay ugu bartaan dhaqankooda iyo diintooda suuban ay ilaashadaan haddana dal jecel ayaa ka muuqda heesta calanka Soomaaliya ayay ugu sharfeen in aan la wadaago Soomaaliyay tooso isku tiirsanayay hadbakiina taagtaane taageera weligiine idinkay isku tooqaayo idinkay isku taamaayay habanuu tacliin barayo waddankiisa taageero sharcigaa isku kiintalayo luqadaatu waaxidaho amnigiina taagaraho kuma kala tagaysaane xadar waxaa la ooyaayo oo ilmadeganaysaa ikhtiyaarka loo diido la adoonsanaanahaye intaasi kadib waxaa ii suura gashay inaan booqdo qaybta gabdhaha ay waxay ku bartaan markii aan booqday fasalada qaar waxaa ku jiray gabdho ka go'an inay wax bartaan oo ayagana sida wiilasha oo kale waxa ay ka kala yimaadeen dalalka reer galbeedka iyo weliba qaar ka mid ah dalalka carabta kuwa gobolada dalka ka yimidna qayb ayay ka yihiin dumarka xilligan wax ku baranaya iskuullada ku yaala magaalada Muqdisho macallimiinta waxa dhigta waa Turkish iyo Soomaali waxa ayna leeyihiin goob loogu diyaariyo cunnada iyo weliba goobo ay ku ciyaaraan caruurta yaryarka ah qaar ka mid ah gabdhaha wax ka barta iskuulkani ayaan la kula kulmay fasaladooda waxaana wax ka weydiiyay waxbarashadooda Our horizon, do you understand? So reading a book should take a huge part in our life, okay? It is good for your character, it is good for your social life, it is good for your speaking, your language, okay? Do you understand? And it improves your mind because reading book
makes your brain working, right? Why it's 60 Firdaus? Because girls, it is isosceles triangles. Yes, two equal sides. X plus. Yes. magacayga shamso cali cabdiraxmaan okay shamso maxaad barataa waxaan bartaa galaaska famtuuga waxaa ka bartaa inta galaas dugsi sare lagu dhigto waxaa bartaa luuqadda turkiga ingiliishka luuqadda carabiga waxaana la baraa certificate-ka soo iskuulkan magaciisa waxaa la yidhahdaa Kiblanom Turkish School aniga waxaan ka imid Puntland waxaan imid sanadkan bishii 3aad 22 waxaan u imid iskuulkan gaalkacay way iga soo wadaan ayaka imtixaan soo qaadeen soo hadda waxaan ahay galaaska form 2 ayman xuseen daahir okay ayman xuseen daahir xagee ka imaatay Belgium xagee ka timid waxaa ka imaaday Belgium Belgium ka timid okay goor imisa sano inta joogtaa ha 4 bilood 4 bilood joogtaa okay maxaad baratay waxaan baranaa English Turkish Somali Arabi haye ka war muqdisho see waay xaaladeeda aad oo fiican tahay muqdisho ma laga yaabaa inaad Belgium u laabato marab Belgium ma laablo Somali smuudingi bas shaqaalayaanya Belgium marabi Soomaaliya inta hadda joogtay maxaa la yaabto wax alla yaabto ma aragtay waxna ma yaabeen ariya bas oo banaanka shogaal yaaba eriga oo banaanka joog ma la yaabto waxa sal yaaba okay waxa ii sheegtaa markaad fiirisid Soomaaliya markaad fiirisid iyo Belgium ka markaad fiirisid nolosha yaa ku fiican Soomaaliya ku fiican because Soomaaliya waxa leedahay cunto oo fresh waxaadana leedahay meeshaas waxa waaye cunto oo fiican haye magacaaga sheeg magacayga waa Muniiro Maxamed Seedo haye imisa dhiganaysa iskoolkan iskuulkan waxaan dhiganayaa 3 bilood haye waxyaalaha aad ka baratay maxaa iga sheegi kartaa waxyaabahan ka bartay waxaa kamid ah language Turkish iyo Englishka iyo Carabiga iyo mathematics dadka iskoolka dhigtay waxay ku jiraan dad dibadda ka imaaday qurbo joog ah dad gobolada waddanka ka yimid dad muqdisho joogi jiray xagee ku jirtaa ana waxa ku joogaa dad oo gobolada ka imaaday gobolkee gobolka Hiiraan beledweyne ma ka timid Buulo Barda ma ka timid Jallaqsi ma ka timid xagee ka timid beledweyne ka imaaday xaafadda ka timid waxa ka imaaday marxalad wabi aad aragto goormii kugu dambeysay markaa muqdisho imaaday ugu dambeysay okay waxaan rabaa inaad tiraahdid beledweyne ka imid ma dhihi kartaa af Turkish ma ku dhihi kartaa ben beledweyne beledweyne liyim ben Hiiraan liyim okay waxaan iskoolkan ka bartaa luqadda Turkigan ka bartay iskoolkan waxaan ka bartay luqadda Turkiga intaas ku fiican laakiin okay waxaad tiraahdaa magacaygu waa magaca Muniira magacaygu waa Muniira benim adi Muniira waxaan jiraa 15 sano ben beeshi shindayim haddaan iraahdo Ben Salmaan micnaheed waxay la mid tahay anigu magacaygu waa Salmaan ardayga markuu dalkiisa uu wax ku baranayo waa uu ka nasiib badan yahay kan qurbaha waxbarashada u aadaa ama halkaasi wax ku baranaya carruurta qurbaha lagu hayo isla markaana wax ku barta iyo weliba carruurta dalkooda dib loogu soo celiyo farqi weyn ayaa sidoo kale u dhexeeya bal ila daawo carruurtan iyo weliba sheekadana dhex martay maxamed haye maxamed iskoolkan dhigataa haye maxaa barataa Somali Turkey Science Social okay ada xagee ka imaatay waddanka ka imaatay ingiriiska ka imaatay haye ingiriiska inta fiican iyo Soomaali ingiriiska muxuu ingiriisku fiican yahay ingiriiska waddankaaga ma aha laakiin inta waddankaaga waa ingiriiska muxuu ku fiican yahay sheeg Soomaaliya fiican Soomaaliya fiican haye ka waran cuntada inta laga cuno cuntada ingiriiska yaa fiican cuntada ingiriiska aad oo maasta kale magacaaga sheegade Cabdikaafi xagee ka imaatay Canada ka imaatay okay iskoolka Turkiga maxaa ka bartaa social health iyo science iyo xisaab iyo Arabic waata labadiin inaad Soomaali tihiin ma aaminsantiin qofka markuu Soomaali yahay waxa lagu aqoonsadaa heesta calanka lagu aqoonsadaa ma qaadi kartiin
haye Somaliye toso toso sitiisadaye abakina taagdarane taageero idinine oh good ya musa haloo sacbi Soomaali waa haloo sacbiyo haye ka war dhalinyarada kale ee Canada joogto oo Soomaalida maxaa dhileed dhalinyarada Canada joogto oo Soomaalida ah wadanka imaada maxaa dhileed u sheeg marka Canada ah maya dhalinyarada Soomaalida adi camal ilmaha yariiska Soomaalida adi camal oo Canada joogan maxaa u sheegay salaadaha Soomaaliya imaada way fiican tahay koroxway thank you gabdhaha ayaan ka liidan wiilasha waa kuwa firfircoon aadna u jecel dalkooda Soomaaliya in ay wax ay ku bartaan okay ii sheeg magacaaga Xawo haye Xawo maxaa barataa math English iyo science social soo dhawow waxa ii sheegtaa xagee ka imaatay Dubai yaa ka imaatay carabi ma taqaanaa okay ما اسمك؟ اسمي حاوة ليش جيت الصومال؟ كان بحب الصومال أمي قالت صومال ما شاء الله سو أتي بتبغى أن ترجع إلى السعودية أم الإمارات؟ نعم بريد بتريدين؟ كيف الصومال الآن؟ الصومال ما شاء الله بلاد حلو؟ نعم فري gabdhahani ayaan waxaana ka codsaday inay garanayaan heesta calanka Soomaaliya ها أي يقول يراهدين وين كله غيان intaasi kadib waxa ay ii raaciyeen hees carabi ah oo Soomaaliya ka hadlaysa وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر مقديشو هي القمر هرقيسة هي القمر كسمايو أحبها صومالي وأفتخر مقديشو هي القمر هرقيسة هي القمر كسمايو أحبها صومالي وأفتخر لنا الحنين رغم الأسى لن نشتكي سنستمر سينتهي خلافنا صومالي وأفتخر daawadayaal barnaamijka muuqaalka bulshada oo toddobaad walba xilliyadan oo kale aad kala socotaan TV-ga caalamiga Universal intaasi ayaana ku soo gabagabeynayaa dhanka farsamada iyo kaamirada waxa qaabeynaya Cabdirasaaq Maxamuud Jaamac Muqosle intaan barnaamij kale mid ku kulmayno waa bahda barnaamijka muuqaalka bulshada oo toddobaadkan idin la sidaas iyo nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh